ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر. لا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر. لا إله إلا الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wamaalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuul allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamada adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaanaa. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن سفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر يا أبا ذر بكير الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية صعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي حكود دجن ولا كيجا مسلم كو شو وقتي وحال كيجا إلى هاي أوجي هاي حكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول يا طاعتي عبادتي هي دين انت هيستوليها كو قنعن. اما ادويدي كسبك يا ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب الله جدي. وابا در ازهد امتي واعبدها بالنبي قولي وانك امتي اذا ugu زاهد سنه ugu cibaado badan. man araada an yandura ila ciisa ibn maryam falyandur ila abi dar buu nebigu yidhi. ninkii doonaya nebi ciise inuu arko abadar al-ghifaari ha arka buu yidhi, zuhdigiisa iyo siduu adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadarow doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheedhiyo way ku liqi haddii kale. wa akthar zaada fa ina safara tawiil. sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi abudarow, safarku uu dheer yahay. sayidina abaa hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi abaa hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqilati zaadii wa bucda safarii. sahaydaa wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada abu dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabaday iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey, anigaaba carabe ma cid kalaa?
ها نين قريش الله دياري قريش كذا شيء أنا جاب قريش معد كلا ها نين أمة النبي محمد الله دياري أنا جاب محمد معد كلا ها بيتر عمر بن الخطاب قصر الله دياري هذا عمر ولكن حيري مساجد كالنبي خطبته كجدي وحيري لو نادى من السماء كلكم داخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون هو هذه السماء اللي قد وقول لي بني آدم كنا الجنة قليان هل ننكليا نار كقلايا نقاسيني أني تهانو ملين بورنجري قناعة في الدين لما أقوله ولا الكيغا مسلم كو دين انت هيستوها كو قنعن الدوية انت هيستوها كو قنع تاسا مستحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قرنين قرون الدوية الصومر تقرنين خير من نابي جوجين ساسين إلهي وقعب سونيين الدوية لما وينين آخرة لما وينين أسبابتي أشياء لما وينين عملك الصالح إيمانك لما وينا مخلوق لما وينين إله خالق عمر كيسان لما وينا من لم يرضى بقضائي ولم يصبر البلاء ولم يشكر على نعمائي فليخرج من بين السماء وأرضي فليلتمس ربا سواي بإلهي حديث القدس من لم يرضى بقضائي قضاها وحي أنكو حكم أدونك الرالي أنكو أهين نعمة دايدنا أن يقول شكريين بلايدا أنو كيننا كسبرينين سمدي أرلد عنيقا سميستيها إيقاتكو ملك الحقبتو ربك لن حسن استيبا إلهي إلى أين حكون مشغول شهواتك أرزاقت هنقري واحد عوني سوينونا كبسيجين طاعات إلهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن طاعة الله قرآنك هو دعوة لما يسترن ويان ودعوة تامة إلهي ودعوة دين الصينايا وبتكاغو وبتكانو الشقايا وبتكانو ورديا يحولها قاد حسابين يستطاعات إلهي نكبسيجين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدويدن هل كان جنة النار تبا لقد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد يرسنيا نارتين هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي جنة لقوقلي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت لقوقلي هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآنك إلهي نوشيغي أفر تعدو نيو الله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جن ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادع النفط هذا شيطان كان هادع الديد هادع طاعة إلهي إنك سجن الديد إلهي كوجع إلهي أوصيا كوجع علينا أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلبوا كسحدي dhagaxdii baa markaa feeraha ka qabatay Umar baa dul yimid oo lilmeeyay oo ku kacay nabiga kaleey salaatu wasalaam yaa Umar buu keenay maxaa ka oohinaya wuxuu yaa rasuulallah waxa iga oohinayay buu adigoo rasuulka ilaahay ayaa dhagaxdu feeraha ka qabanaysa markaasuu nabigu ku yiri yaa Umar ma diga shikisantahay aniga may kala ka ma shikisaniye waxa ii cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badana inay dhagaxdu feeraha ka qabato kisra iyo qaysarna sirridahaba ay ku seexdaan جوابت دقيسو ولالكيغا مسلم كو وحيري يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا يا عمر وما أدرى لك وهين إني الراحة الدوية يكون لحدا كالسناء قاتان إنكم الراحة آخرة نسك قادم مسلمكم مؤمنكم لضوني ما يصددتك كلينو فكرو مال بعضو سعوتا تدنبها كل وينات تنك تقلقوا ملي تدنبها هدي كل وينات تنادويد ويمعانان هاد بقوفك انت العقد وزيادة الراحة ومزيادة وقو هاد بقوفك انت الدويد وزيادة والولي والبهاركا كزيادة هاد بقوفك انت إيمانك الدين تي قرب من الله يقول وعدنا راحة يا وزيادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسن لي ما دا عمل وناكسن شنطا وقتي والجمع كتك تاياك مدى عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يديك متكو دوني بهان نغضب إلى هيدي لبي يديك متكو دوني بهان نغضب وهو مؤمن حاله وقفك مؤمن هو إيمان ليه
فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا نولن لغو نولاده توبو وناكسن مفسرين waxay yiraahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbiga ku daga arsaaqada kugu filaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexda wuxuu Ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo amal saalix hadii dadka laga helo iimaan iyo amal saalix marka lagu leeyahay diinta Ilaahay qabso awaamirta Ilaahay adkayso ma aha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همه سكدق أبو الرسول كده الدوية قبا كفكرة آخرة ربطة هاي نداقة كسارة إسكاين لوبا لابد إن لودين تود حيسا فقرق الله سارة أرميه سنة برية قلبات بار رب العزة كوكلا شيريا الدوية ما بها لإنتي الله قدر مويانه ومن كانت الآخرة همه نك همه سكدق أبو الرسول كده آخرة جعله الله غناه في قلبك يا غنى الراحل وقبوحيا وجمع الله شمله أرميه صدنا إلهي بس كوكو صدويا واتت الدنيا وهي الراغمة الدوية وحي اتمادا يدو سندليسن وهو سعتي اتمادا برسول كويري هكسي جسن طاعد إلهي والله كمسلم كو دين تنوحو إلهي نوسيي سيادون كان يا آخران نقول لي بانو منافع الدين منفعات الدين تو آخرة كلية كمان بالعبانتين الدوية دين تلقوا درجيا الدوية دين تعز لقوا هلايا الدون كنا دين الراحة لقوا هلايا الدوية دين تأمن النبت قليل لقوا هلايا يا طالب الرزق في الدنيا بقوته قد كمان أنت ودبر طاعد إلى واحد قد عفوا سواهم قريس اسمع يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك استأمرته اسكدا أرلنا انتو تشغى كويدو هداد سمد الشغى لقوقو الشغى أجدونة الشغى كبشبيو كو قرين مسو قادس أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبكاga yareeha isdaalin xoogaaga iyo aqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicin kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu haday libaax foodiisa taalo ayada ku imanayse la ta'jalanna fa inna rizqa laysa bil ajali hadagdagin arsaaqada xoog iyo qafaf lagu ma hele rizqu maktuban bil lawhi ma'a al ajali arsaaqadaadi iyo cimrigaaga waxay ku qoran yihiin lawh mahfuudka ma dhimanaysid illa arsaaqadaada dhameysatid ma heleen لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجلي هذا الصبر لهين رزق يسقى إن الصدون لها لكن بني آدم كان أسكدك دقي مر والب وحول بدقدق بكدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قفك الصوى مسلم عيال لقربا إنه إيمانك سيل على الصدق inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamka oo dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamka oo dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka sida u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac سيدنا عمر رضي الله عنه
ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiina ku soo maray kalimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi binu thaabit iyo nebigoo wada fadhiya buu u yimiday alaa acraduhaa calayka yaa rasuul allah buu yidhi yaa rasuul allah ma kuu bandhigaa nin reer bani quraydoo saaxiiba nahay baan kalimaad towraada ka soo qoree fatagayara wajhu nabiyi calayhi salaatu wasalaam midabkii nebiga isbedelay balu fiirso midabkiibaa isbedelay midabkii rasuulka cabdullaahi baa yidhi yaa cumar hakiladka ummuk waydaa gablantee nebiga wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin cumar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bimuxamadin sala allahu calayhi wasalam rasuulan wa nabiya nebi maxamed risaaladiisa iyo nebinimadiisana waan ku qanacnay buuhi raalli baan ku nahay fasura nebigu wuu farxay mambarkiibuu fuulay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ismac yaa akhi dhegayso dad aan waxba ahayn oo laysku ekaysiiyo dadkeennu isku ekaysiiyaan iska daaye undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam low asbaxa muusa fiikum uma itabactumuuhu wa taraktumuunii la dalaltum buu yidhi haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay nasiib ayaan ini ahay buuhi nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa uu shareecadiisii towraad la iman lahaa ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana gelitaanka ugu horaysa ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nebigu nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey imaamkii ambiyada maadaamoon ahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee shareecadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummaddiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nebigu yidhi xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyadu geli maayana waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine wa xurimat iljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buuhan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad aragin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunuu ruba ahli aljanna qulnaa balaa cabdullaahi bni mascuud baa yidhi nebigaa maalinna urriyo wuxuu nagu yidhi raallima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qayb inaad noqotaan raallima ku tihiin asxaabtu waxay yidhahdeen haa atardawna an takunuu thuluth ahli aljanna ahlu jannaha marka 3 loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ma ku tihiin raalli baa naha yidhaahdeen markaasuu nebigu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi innii la arjuu an takunuu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajo weynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajo weynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummaddiisii buu inaga dhigay ilaahay wuu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan amaa ummaddan 2 shay baa laga rabaa 2 shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro
ummada inaga dambaysaana ma jirtee alaa falyuballigha shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila joogay maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ballighuu canii adduu canii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanada qaado caalamka iga gaadhsiiya allaahuma astur man nasara diina muxamed ilaahow ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharaftaa iyo karaamada ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday wax kale ma aha waa tarku dacwa dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول دقتي اسكر حول دقتي أدو جيستان هي بيرها قودتان تجارة أدو كعدان شغلي دينتي دلالكي هلقي دينتي أتكتكتان إلهي الدل بنهوين يا دلي نقصار ما يدلق نقصي بمايو إلا دينتي نادو نقطان ما هنا إلى دينكم بل إلى دينكم دينتو وحي باقي كن نغنسا صلاة ماها صونك ماها حشك ماها دينتو وحي باقي كن نغنسا في كل زمان وإن له جهد الدعوة مر علي مركي دينتو وصل عذبا إلهي وحسو صار علماء ربانيين مر لبات سو عصبوني سيسا توحيدك إيمانك يا أخلاق الإسلام كلها ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 6 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa marka iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii qofkii buu kala dhexmaraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan lahayahay oo sunnaha uga baxsanaya laana aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan umar man marabu nabigu yiri tog shaydaana toga kalu ka sii wacda lianna umar saaxibul haq buha saaxibul haq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade shaydaanku waxa uu ka cabsoonaya waa aadaanka allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sida darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani as-suu dacwada maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuqubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqo ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan aad igu tiri soo halaag addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yidhi fabda bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yatacamar wajhu saacatan fiya dadka aniga yacaasinaya ghayrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wajigiisu kama doorsoominoo kama murugoone cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل، يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق التمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى waa muncim, isagaa inoo nicmeeyey. nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan: nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar
bini aadanka oo dhan bay maaragtaan ee ka dhaxaysaa. nicmadda weynina dad gaara ayaa khaas u tahay. nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad. ilaahay isagayna jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagayna jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir, 40 jir, 50 jir, haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay. horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahayna waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuurayaa baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri. bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat. arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila. khalqi fara badan oo sameeyena insaankanaan ka karaameeyay baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma balka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar. ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye, bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tagtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa. keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa. marka khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday. wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde, liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii. jibriil baa u yimid calayhi salaam. yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib buu ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi. ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan niyiri buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabuday hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dhe khaliilkayga, ma maalin keliyuu ku yimidaad cunto siini weydee 70 sanuu sanabkaa uu samaystay caabudaa on weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay. arsaaqadu waa nicmad weeyaan. nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan. caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan. nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan. akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a.
wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacallakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu niga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn, markaasuu maqal ini yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmadaasina waa nicmad cumuumiya, nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. mancim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah. waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray, cadceedda ilaahay baa soo saaraya, amarka ilaahay baa ku soo baxaysa, amarka ilahay baa ku dhacaysaa. dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey. waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun fafiruu ila allah. samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey, gacantiisa. dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey. shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa adu antowdaan. dharaar iyo habeen, dayax iyo cadcaad, kulayl iyo qabow, abaar iyo barwaaqo, nabadgelyo iyo cabsi, nolol iyo geeri, xanuun iyo caafimaad, lab iyo dhidig, faqiir iyo qani, xanuun iyo caafimaad, faqri iyo hina, cizo iyo dilla. shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa u antowdaan. ee fafiruu ila allah, xagga eebbihiina u yaaca, xagga makhluuqaha u yaacina. hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca. man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi. ninka shay ka cabsada, shayga uu ka baxsadaa, uu ka ordaa. ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa. haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan. haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan? xaggiisa baad u baxsan. meel kaloo loo baxsanaya ma jirto, meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto. xaggiisa isku dhiib. taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray. sakhara lakum maa fi lardi jamiican. barigiibuu kuu sakhiray, buurihiibuu kuu sakhiray, baddiibuu kuu sakhiray, hawadiibuu kuu sakhiray, kaa'inaadkao dhan buu adiga kuu sakhiray, xoolihiibuu kuu sakhiray. wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi. wa ina lakum fi lancaam, nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi. nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi, shayga caloosheeda ay ku haysato, caanahaasoon ka soo dhex saarna baa ilaahay yidhi. dhiigiyo uusinta udhexaysaa ka soo saarnaa baa la yidhi, caano cad. taskhiir, xoolihii baa lagu sakhiray, cadcadii baa lagu sakhiray, habeenkaa lagu sakhiray, dharaartaa lagu sakhiray, biyahaa lagu sakhiray, hawadaa lagu sakhiray, arsaaqadii baa lagu sakhiray. malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada oon wax kalaba ka shaqaynayn, wax kalaba ka shaqaynayn. afarta malag ee qur-aanku sheegay, jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakul mowt, afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan. labana ruuxday ku shaqo leeyihiin, labana jasadkay ku shaqo leeyihiin. laba jasadkay ku shaqo leeyihiin. jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay. mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay. israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay. haddana malakul mowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd al arwaax, inuu bini aadamka ruuxda ka qabto. bal insaanka sida ilaahay u karaameeya u fiirso. khalaqanaa, ilaahay isagayna abuuray, isagayna jirsiiyey, isagaa ilaahay inoo nicmeeyey. yaa ayuha alinsaan, waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa, kaama hadhin welibana. innii walinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuqu wayushkaru siwaa'ii baa ilahay yidhi. anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi, war weyn baa naga dhex dhacay. akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi, wayacbudu hayrii, heyrkayna uu caabudayaa. anigaa abuuray, heyrkayna uu caabudayaa, heyrkayna uu rajaynaya, heyrkayna uu tala saaranaya, heyrkayna uu isku hadlaynaya, heyrkayna uu ictimaadayaa. arzuqu wayushkaru siwaa'ii, aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi, heyrkayna waa ku mahadinaya. arsaaqada ayaa bixiya, allah baa bixiya. khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilaahay yidhi. khayrkayga maalin walba wuu soo degayaa addoommahayga, sharkoogina anigu isoo fuulayaa baa ilaahay yidhi.
maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaadii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadanka ka soo fulaysay ilaahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysiinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal aduu is xisaabi khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid khayrkaygii wuu u degayaa maalin walba sharkooguna anuu isoo fuulaa baa ilaahay yidhi tucradu alacmaalu yowma alithnaini waalkhamiis buu nebigu yidhi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jalla wacala uu cadhoonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilaahay yidhi welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waanu nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaan waxba ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay-an baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jin iyo insigiin haddaad noqotaan sida kiinii niigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culammada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood i caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftooma u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wa hum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqday baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u lleyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqaa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena oo iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiiow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanayaa ayna aladiina akaluu risqii wa cabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa mee kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudayay kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya maahayne may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid
تعس عبد الدينار والدرهم بو نبي قولي أدونك الدينار كي الدرهم كعبد يا خساره هو غيب رسولك يقولي شهوات كاغا هداد عبد الشهوات باتاي كقبيل جيس أو فعل تمي إسلام نمدي ضاقد كساري القبيل كبد الشيء كاسنا وعبد القبيل ويان من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه برسول كوري نك قبيل نك عمل جيس دبو دغ مالك قيامها نسبك كدا شهر ودغ ما يام برسول كوري هاو فعل تمي رتولكا حبكو تري مايان افكني وحكو ترين اخره وحبكو تريان افكني نافع ويد قبيلدي ومدني دلكني بابيسه ما اخره وحكو تري مركز حميد يا جاهل لماذا اسك صارنو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه نك عمل جيسو دبو دغو لا هرو نسب جيسو هرو دغ ما يام رسولك صلى الله عليه وسلم نبي جنين باوي مدوري نيكا حميد u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buuri shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabiilada u dagaalamaya iyo ma fi sabiilillah jawaami'ul hikam bal siya rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yiri ninka u dagaalama iclaa kalimatillah kaun baa la dartiya rasuulku yiri kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan xoog ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay inaka u baahan ayna alladina abadu ghairi ayna alladina akalu rizqi wa abadu ghairi billahi wadanaya away kuwi arsaaqadayda cunay ghayrkeena caabudayay aynahum arsaaqada ilaahay buu cunayay nicmada ilaahay buu dhaxda baalanayay ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay away billahi wadanaya waa nargoosanaya maanta aniguna marka qofka hadduu macsiyada ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo adduunyada intuu nool yahay waa loo sii ta dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo لا معقب لحكمه أليس الله بعزيز ذو انتقام أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وأرقصني لهي marka cibaadadu maaha sanab kaliya loo sujuudo maaha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhawaad caabuday ka dhigan tahay waxa li wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiyo waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afarayta man ittaqada ilaahu hawa ilaah macneegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxa la yiri waa shayga markay dhibaato kugu timaado qulubtaada u yeelato xaqiis hada uu isma ilaah من أقبل إلي تائبا ناديته من بعيد مرحبا بالتائبين فمن أدبر عني منهم عاصيا ناديته من قريب أين تذهب ولك رب غيري هل كي تجي بورنا يا مالك لو تجي سمجرتي فإلهي ومنعم السقاي نو نعمي بشر بو نقدقي عقل بو نسيي علم بو نسيي كون كان يا كائنات كو نو صخري هدف كو ادويدي نو كانين يا ونو عدي نعمة وين قاركا ددك قاركا لسيه ونعمة الإيمان والإسلام إيمانك إسلام نمد ونعمة وين نعمة داسا إلهي مسلمين تكو داقي نعمة داها كلها كسوا هذا الوردن ونعمة وقت يركو حددين ويان لكن نعمة الإيمان والإسلام ما حددنو بل قفك الدوية إن انتو نوليها إلهي أمركي سقاتا إنو لشيس الدين دميستر لغا هلو الدين تكشكسي اللابتيس أي كم وقتو إيمانك إسلام نمد نولشيس لغا هلو الدوية إن الراحة عز شرف آخرنا وحاود دميس نولشي دائم كأبدي قاحيد الدوية دون حقيقة ومحبا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصية الأولين والآخرين ومحي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي إبراهيم عليه السلام يلشي سوحو كيري
ubadkaygiyo ilaahay diintaas inii doortee yayna ajashiya geeridu nii iman ilaa inikoo diinta ay xadhigaa haysta maahine hadday nii timaado ajashu inikoo xadhigaa haystana waad liibaanteen hadday ajashu inii timaado inikoo xadhigaa haysanna khasaara waxaad ku dhacdeen weligii aan laga soo kamayn khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankooga way ka baxeen quruumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin waa ka soo baxeen meeshanna waa ka la iskaga yar cascasiya baawure la iska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawadu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawadu lmujrimu low yaftadii yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaana shiba ilahay baa leh fakayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeyahy seenad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmaduna siiye aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad raacdaan miyaanad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim bale yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba uu qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadaa qoloqoladan ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jiraa i kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa i caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meel u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada waa ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa innaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta unbaa tee qorshaa ku darso wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkana ku nool lahay marka loo eega cawaalimta ka dambaysa
caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa. caalamu dunya waa 60 sano 70 sano. caalamul barzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada. dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan, qolana way ku cadaaban tahay, qolana way ku raaxaysanaysaa, waa loogu janneeyey. alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi. qabrigu laba mid buu noqonayaa, ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa, ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa. sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad loo oydaa markaad aragto? wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam, qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya. hadduu qofku halkaa ku nabadgalo nabadgelyo ayaa u dambaysa, hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi. zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa, imaam taabici buu ahaa. salaadii subax buu jamcii tujiyey. rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada uu dhameeyey suurat lmudathir buu ku xijisiiyey. markuu marayo faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir. maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilaahay waa maalin culus, waa maalin culus weeyaan. maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi. aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday. sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay. yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay. gurigiisii baa la geeyey. 30 maalmood buu xanuunsanaa. xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn. sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman. markaasuu qur-aankiibuu kala furay, waa qabla alfutuur weeyaan. qur-aankiibuu kala furay, markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima. طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa. aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey. sidiibuu ku seexday habeenkii gaajo. nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas. waxyigiibaa ku soo degay, isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara. kuwii ilaahay nebiga rumeeyow, duulkii ilaahay nebiga rumeeyow, lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi, ee gaajo kala baxsada lama odhan. gaajaa laga soo yaacay, dhibaato keliya laga soo yaacay. 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari layahay. quu anfusakum waahliikum naara. mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta, ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi. waxaa yeele diinta lagaga badbaadayaa naarta. aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara, markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey, uu ooyey oo hintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam. yaa muxamed kan hoostaada ku weeye waayo? markaasuu yidhi yaa jibriil waa adoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina, aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi. markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akartu daxikaha fi ljanna. ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo, cabsadayda lama ooyo. haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badyaabaa ilaahay yidhi. 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa. abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya. allah inaga dhiga kuwaas. fadadkii hore quluubtoodu markuu iftiinku galay nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya, markay 4taa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay. qur-aankay fahmeen, waxyigiibay fahmeen. cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen, abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge.
markaasuu wayse soo raaceen umu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar aliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda umu ayman way lilmaysay markaasuu cumar abubakar baa ku yidhi yaa umu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alle agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkaysoo dhan beene waxa samada ka yimidee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhaahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa majnuun adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت لا يكون قدرين ويان واحد زيادة مهلس أرزاقده وأنت لا يكون قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يجا عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يجا عالم كقيامه ويرانا يا عالم كقيامه مرك الله يجا عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يسنا لكن محل لقوا بدادية وحل لقوا بدادية هل كان لقى قادنيا هل كان لقى قادنيا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي نسائر وحيري إن آدنوا ما لنتي أدويدا دمنيسي ما لنتي أدويدا إيمانيسي وحيه إذا كنا شيء أدو أويا دتكن أكتر هاي فرحسينين عنو قبركو دلنا يو بقاق وقيلي يسقو لكن دتكو فرحسينين فاحفظ لنفسك نفت هذا انت نوشه إلاليو أمرك إلهي كو إلاليو دينت إلهي إلى السوء إيمانك إلى السوء سلان نمد إلى السوء أمرك إلهي حسيدين سمال انت دمان يسوء هذا دويد وقتك تهدقو فرحسن دتكو ناكتا دا يكو أويان دتكو والله وضع ننا دويد وحكتك يسقو فرحسن ننا ومستريح ننا ومستراح nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay nina waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان إن آدم هدي لسيه تك ذهب والسعودة بو نبي يقولي كل بعض بو جعلان بو يري هدي كل بعض لسينا
كصدحات بو جعلان بو يري إني آدن أفقي سواح كلام أبو حيانة قبرك مركز لقلي عيد اللي قرون بدرجاب رسولك يري الدنيا اللي ما درجو ما درجيس حياة لو قمت سلا قليم بقى شهوات وحي بني آدم كوبا هاي الدنيا اللي قمت ما يسترن دار باجرت اللي قمت ما يستر وحي نفته وباهنتحي هذا الصباح دي بلو فيرسو مقالة دا ضوطون كمالها ناتر هذا سانتر فيل بنرانكو وسط المدينة وضد هانويجي وسعت مقالة برتمهيجا أيها الصباح دي مارك تاني الرشا والزحمة دا هذا سرادتك هالكيت جيسان وعي كلها يا نواشقة تجينا قلبتنا وضد كلا يا الزحمة دا وعديديا هذا ترى هالكيت جيسان وعقلية والراحة تجيا قولي يجيبها تجيا ريرك يجي ورد دي بنو تجيا ماشي الشقادنا واميل جونية ماشي الراحة واميل جونية الدوية ماشي اللي يقول راح يسني ماها هلك الشغال لو يمدي ماشي الراحة والله نقندونا إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسقموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة وبرسولك يري مركي الجنة الجلان أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت اللي قبل أبا واحد ليه النلل أدي مشد دم بلهين شباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمت أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالله يا أين الدنيا حديث النبي كشيك ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلا جنة دسك قليا كوجود درجة ابن النبي مالك الشيكي حيوري وأنن كسب حياة جنة ابن النبي يقول جنة كسب حياة غرغورة بوك كسب حياة الباب كي جنة إلهي بهر إيمانا يا إلهي بهرنا يا عبدي أدون كيجيو أرض الجنة قلوة تاس الباب كي جنة إيمانا يا إني يسيب الله قدك يا جنة إني بحسنتي مركز النقطة يا رب جنة تك قل يقتري ويبحدا ما لن كدك ما هيست مركز سلا أورنا يا مبحدا أرض النقطة قل هذا أو إيمانا يا مر لباد مر صدحات مركز أفراد إلهي أورنا يا أرض الجنة قل أو تك أو قل جنة الدنيا دي يتوبن كيد بالله رح كيلي قاسي الدنيا دي أي مسا توبن كيد وصاحدا أرلد ويان أما واحد جنة يا لا الدنيا ما يلين الدنيا محا يلا مركاسو أورنا يا أتسخر بي إله ما يقول ده ليس أو تضحك بي مسوادك وقصل صادق أبو بكر كيه مسكح دي سيك ده عين رنتاس الدنيا دي يتوبن كيد بالغوسية سعو إمام قرطبي كتابه التذكرة وحو كل شيء نكاسي مدحوينا مركز الدولة لو مقعابو كورمير بو سميا دل كوردن بو صومرا قبل دا تولوينكا دستريجيدا ميلكاسو صومرا وزاردها نكاسي وحو يري هل كانوا كبلابا يا جنديسي هل كانوا كبلابا يا إلى دنعك لو كسو وريغيو ماشو مرنا مر لبادشا كو قوان مايه سفر كا وحو كقادنا يا كون سنادود إمسا سنو كون سنادود فياتي وحو إيمانيا الباب كي جنة ويسسوتاقيا حور العين تسيبا كور إيمانيسا تنظر إليه وينظر إليها ابن عباس ويأجي وأجي أجمدو كليها يا قادن يسيبوا دافرت السندود إمسسنا عبد الجوكتان النظر فقط تعانقه ويعانقها وكبوديا ويكسو بوديسا ويسكدقيا والمعانقة قدر 40 سنة ابن عبد الله بن عباس معانقته كلية waxay saysanayaan 40 sanadood oo kale وصعنايا مخسيكي cuntada ay taalay buu fadhiisanaya 700 sano cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cuno 700 sano أين الدنيا maxay adduunyadu حور العين توان كشاكين لهنا كله هواينكم ونلا فديان بيانكم ونلا دغيسانيا محاضرada حقوقنا waan sheegaynaa عجيب نعمة داسا إلهي دادك مؤمنين تود ياريي يطوف عليه 10,000 خادم النبي يقول نكا جنة قال دادك جنة قال وقود جغير وقود فقير سن وقود مزل فقير لما دهي كره وقود جغير واحد دوشي الضوافة يا ابو النبي يقول طبعا كن خادم بدول ضوافة يا
khaadimka kala arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kala ma sido guryaha jannada buu nabigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbiraad u duulaysaan aad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindhe iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku bedelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa hadday jidhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebayaa laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nazulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka ilaahay ka mid a alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddeed hole nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebigu ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweenayda dhimata iyaduu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin layidhaa baabu salaa dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan layidhaa dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa layidhaa dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad layidhaa abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abubakarow abubakar keliya ka gali maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigaygana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oy soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oy adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanay la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaishaa weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi
dhagayso gabadheeda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagi kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi ibn cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi ibn cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday wadadoodii maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka baydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaan la yidhi waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhallabay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi saacadaan gaadhay malaha allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada diintaa inaan adkaysanno oo nicmaddaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkan aan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaaha xayumaa kunta buu nebigu yidhi meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuuna siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan muuminka dhabta ma badilmay waxbuu badilaa lama saameeyo waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatul amawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia iyo malaysia u tageen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimat illaah ixyaa addiin fi lcaalam nashr anicma mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma badilmaya isagaa wax badilaya lama saamaynaya isagaa wax saamaynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daas zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camalfalayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waddacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad
aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay. cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay, masar buu yimiday, libiya ayuu yimiday, muxiit alatlas maqrib intuu istaagay. zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin. faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah. yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi. alaan arjac ila almadiina, haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina. maxaan u noqonayaa? lianna alarda intahat, lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi. haddeetoole uu celiyey faraskii, jazaa'ir buu markaa ku dhintay, halkaasaa lagu aasay. madiinuu ku barbaaray. cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuu ahaa, waxau ku aasan yahay suudaan. abu ayuub alansaari ree madiina ayuu ahaa, istaanbul buu ku aasan yahay. abi waqaas ree madiina ayuu ahaa, siin buu ku aasan yahay. cabdiraxmaan alghaafiqi ree dimashq buu ahaa, faraans buu ku aasan yahay. bilaal ree makuu ahaa, wuxuu ku aasan yahay dimashq. kam min asaxaaba caalamka ku aasan, kam muslimiina dalkan maanta ku aasan. laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan. saamaxa hoosta waxba aygu qabanina. hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconna iskuma dhowo walaalayaal. lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa. dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa, waa inaan bedelnaa. waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa. niyaddeenni waan bedelaynaa. maxaanu bedelaynaa? inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno, oon ka bilowna shaqada diinta. muslimiintii hor dalkan timid ime aawe dadkii yimid dalkan ayna hum maanta? inta soo galaysa maskiidka ha ku farxin, ziyaaraadka bax, jawladda bax, raac jamaacadada dibadda u bax, waad yaabi doontaa. tastaqrib ayaa u soo baxaya. innaka halkii nabiga taagan calayhi salaatu wasalaam, man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yidhi. falaysa minhum, ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin, ka murugoon, naga mid maha buuhi annaka, ama muslimiintaba ka mid maaha. dhibaatada ugu weynee islaamka haysata waa maxay? bucdu can iddiin. dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday. dhibaatadee ka weyn? allah ina fahamsiiyo. dee niyadda ma bedelaa? haa dhahada dee bal wiciila niyaddii waan bedelow gacanta taag. mustaacidiin dhahada. oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahee bixitaanka un maad ka reebtaanaa buu yidhi. kullay meel ho u baahan hadal wax ma ka taraa? yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi. alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici. libaaxu muxuu libaax ku noqday? kayntiisu libaax ku yahay. muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta. hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan, hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin, cidda kalena ay daahirinayaan. ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal. fa insha allah niyooda inaad socotaan, ziyaarta dadka socda. nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam. khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan. ma ka fadli badan tahay adigu? wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira. waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi? u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegey. dadku waa laba weeyaan, muqbiliin iyo mudbiriin. dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn. iyo maa badan, iyo maa badan. 90% ma soo galeen masaajidda. dacwadda waa maxay? dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha. dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha. labadana waa loo baahan yahay. barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya? haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan, way dhoofayaan. mid baa dhiman, mid baa noqon, mid baa xanuunsan, mid baa waalan. masaajidka cidluu ka soo bixi. marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culummada iyo masaajidda. marka jamacaadku wax kale lama socdaan, wax jadiida ma wadaan. mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda. faham walaal. fa marka allah ina waafajiyo, allahna inagu anfaco. le jamaacaduna berri weyna la joogaan, na soo ziyaarta. usbuuc kadibna kanada inay u gudbaan baa laga yaabaa. waana nii soo noqon doonaa. dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay samaha yaa
dee martida in la yar dhaweeyena xaq way u leedahay, maxaad u dhaweyn laadihin? isku noqda in sha allahu tacala. waan ila joognaa, allahna khayrkana waafajiyo. wa sala allahu calaa sayidina muxamed.